kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada qaybtii labaad ee sheekadii Kun Habeen iyo Habeen. sheekada waxay noo mareysay qaybtii koowaad markii labadii boqor arkeen waxa beerta qasriga ka dhacayo iyo habdhaqanka foosha xun ee ay ku kaceen naagihii qasriga oo ay ugu horeyso naagtii boqor Shahriyaar. boqor Shahriyaar markuu arkay waxa naagtiisa ay sameynayso ayuu aqligii ka duulay wuxuuna walaalkiisa ka yar ku yiri nabad walaalow aan meeshaan isaga tagne waxba uguma baahnin boqortooyo ilaa aan ka soo aragno in adduunkaani ku nool yihiin dad annaga nala mid ah ama naga liitaan. markaasi ayuu ogolaaday kadibna labadoodii si wadajir ah ayay ugu baxeen ayagoo qasriga qaab qarsoodi ah ugu baxayo. waxay safar ku jiraan maalintii dambe ayay geed hoos fadhiisteen iyagoo daalan geedkii wuxuu u dhawaa bad yar oo meesha ku taalay iyagoo meesha ku nasanayo ayay badii hal mar kacday waxaana ka soo baxay wax aad moodo tiir weyn kaasoo cirka isku shareeray. markay arkeen waxaani ayay cabsi dareemeen iyagoo geedkii orod ku fuuleen waxayna sii fiirinayeen waxa badda ka soo baxaya wuxuu yahay. mase waxa badda ka soo baxay waa jinni aad u weyn aadana u dheer oo feero weyn wuxuuna madaxa ku xambaarsan yahay sanduuq weyn. jinnigii sidii uu soo socday wuxuu imaaday geedkii ay labadii boqor saarnaayeen markaasi ayuu geedkii hoostiisa fadhiistay wuxuuna furay sanduuqii weynaa markaasi ayuu ka soo bixiyay sanduuq kale wuu sii furay wuxuu ku soo bixiyay gabar aad moodo xurul-ayntii jannada quruxdeedana aad yaabayso sidii dayaxana u ifayso. markaasi ayuu jinnigii gabadhii ku yiri boqoradii horta heeday waataan ku soo afduubtay habeenkii aqalgalkaada waxaan rabaa hadda inaan xoogaa yar seexdo. markaasi ayuu intuu dhabteeda madaxa saartay ayuu ku seexday. gabadhii iyada oo meelaha fiirinayso ayaa waxa indhaheedu qabteen labadii boqor ee geedka saarnaa. markaasi ayaa madaxii jinka inta ay dhabteeda ka qaaday dhulka dhigtay kadibna u soo jeesatay dhankii labadii boqor ayay u ishaartay in ay soo degaan. markaasi ayaa waxa ay ku dhaheen jinnigaani cirfiidka ah ayaan ka baqaynaa. markaasi ayay ku tiri soo degta haddaydaana soo degin cirfiidkani ayaan soo kicinayaa. markaasi ayay cabsadeen wayna soo degeen. markay soo degteen ayay ku tiri labadiina waxaan idinka rabaa in aad ila tumataan oo ila raaxaysataan. balse way ka diideen hase yeeshee waxay ugu hanjabtay in ay jinniga ka soo kici doonto oo si xun u dili doono. markaas ayay waxay rabti u sameeyeen. markay howshii dhammeeyeen ayay waxay jeebkeeda ka soo bixisay kolay yar waxaana ku jiray in ka badan 570 faraanti. markaasi ayay ku tiri ma garanaysaan waxay yihiin faraantiyadaani? waxay dhaheen maya ma garanayno. jinnigaani aad u jeedaan wuxuu i soo afduubtay habeenkii aqalgalkayga wuxuuna igu xiray sanduuqaani asigoo ku sii xiray 7 quful wuxuuna igu riday badda moolkeeda si uu iga ilaaliyo wax nin ah. sidaas oo ay tahayna waxaan la tuntay dhammaan nimankii faraantiyaashan lahaa idinkana isiya faraantiyadiina. labadii boqor markay hadalkaasi maqleen aad ayay ugu yaabeen waxayna isdhaheen haddiiba cirfiidkaani saan u weyn oo gabadhaani saan u ilaalinayo ku dhaceen wixii annaga nagu dhaceen wax ka daran waa arrin cajiib ah iyo qaadawaa. markaasi ayaa labadoodii oo yaaban degdeg meeshii ugu soo tageen waxayna ku soo laabteen boqortooyadoodii. boqor Shahriyaar oo aad u xanaaqsan ayaa yimid qasrigiisii wuxuuna amar ku bixiyay in la soo qabto naagtiisii jaariyadihii iyo adoomadii la tumanayay waana la soo qabtay iyadoo dhammaantood kurka laga wada gooyay. intaasi kuma ekaanin boqor Shahriyaar wuxuu amar ku bixiyay in habeen kasta gabar cusub loo soo guuriyo subaxiina kurka laga gooyo. wixii sidaasi xaalku ahaadaba muddo 3 sano ah kadib waxaa la waayay wax gabar ah oo gabdhihii waxay isku bedeleen wax la dilay iyo wax cararay. wasiirkii u qaabilsanay boqorka dhanka guurka maalintaasi markuu soo waayay wax gabar ah oo uu dhiso ayuu gurigiisii yimaaday asagoo aad u murugaysan. wasiirku wuxuu dhalay 2 gabdhood oo aad u qurux badan. mid weyn waxaa la dhihi jiray Shahrazad mid yarna Dunyazaad.
midda weyn ee Shahrazad waxay ahayd gabar mutacallimad ah oo wax badan ka taqaano kutubta taariikhda iyo sheekooyinka boqoradii hore iyo wararkii ummadihii hore. waxaa la sheegay in gabadhaasi Shahrazad ah ay baratay in ka badan 100 kitaab oo ku saabsan taariikhdii iyo sheekooyinkii hore. Shahrazad waxay ahayd gabar aad u caqli badan, waxayna aragtay aabaheeda oo wajigiisu murug ka muuqato, waxayna ku dhahday, aabow maxaa kugu dhacay oo aad sidaani dhan ugu murugaysan tahay? markaas ayuu wasiirkii gabadhii u sheegay siday wax u jiraan, wuxuuna yiri, waxaa la iga rabaa inaan caawo boqorka gabar u soo dhiso, haddaan u soo dhisi waayana kurka ayaa la iga jarayaa. markaas ayaa Shahrazad aabaheed waxa ay ku dhahday, aabow aniga ii guuri, laba mid ayay noqonaysaa, in la ii dilo ama inaan madax furasho u noqdo gabdho badan oo muslimiin ah oo halaagsami lahaayeen. markaas ayuu wasiirkii yiri, waa ku cabsanayaa ee naftaada halis ha gelin. markaasi ayaa waxa ay ku tiri, waan ku qasbanahay midaas oo waa laga maarmaan ee ii guuri. markaasi ayaa wuxuu ku yiri, waxaan kaaga cabsanayaa inay kugu dhacdo wixii ku dhacay dibigii iyo dameerkii uu ninkii beeraleyda lahaa. markaasi ayaa waxa ay ku tiri, oo maxaa ku dhacay aabow? halkaa inoo joogto qaybtii labaad ee sheekadii Kun Habeen iyo Habeen. tani intaan ku kulmayna qaybta saddexaad, hadduu Rabbi raali ka noqdo, waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.